xaflad aad u ballaaran oo ku saabsanayd soo dhoweynta safiirka iyo qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya dalka Germany Professor Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Farabadan iyo Dr. Daahir Salaad Xasan oo ay soo qabanqaabisay Somali Community iyo jaaliyadda dowladda Soomaaliyeed ee dalka Germany ayaa lagu qabtay magaalada München ee Bayern Munich iyagoo halkaasi ka hadlaya munaasabadaasi waxay yiraahdeen laakiin waxa la soo gaaray waqtigu waa laga gaari lahaa marka imaani arrimaha miiskiga saarinta ku jirtay in wax laga qabto markiin waa bilownay asiisan qaran u sameeyey waa la qiimeeyey waa loo tegey borosaskii soomaaliya waxaa iska maqan wax kastoo la gadayo waxay leeyihiin nidaam la maray oo dowladeed hadda go-aanka u dambeeyey wuxuu noqday in guryahaas la gado guryaha laga gato magaalada baarliin dalka soomaaliya leedahay marka waxaa isku diyaarinaysaa wasaaraddu waa joogtaa sanadkan gudahiisa ay dowladda soomaaliya iyo safaaradda soomaaliya ay gud cusub oo safaaradda ku yeerta doonto magaalada baarliin waxaan ka hadlaynaa hadda futures passaportkeena standardkiisa internationally EU standard inuu gudbo run ah ayaanu ka hadlaynaa adiguna waxaad ka hadlaysaa passaportkii waa la diidan yahay subcisbaad ku wadaan run kaasaad naqdinka ku haysaan ka daaya marka meeshaan marayno way ka duwan tahay meesha adinku weli aad ku dhegantihiin aad ku qufudantihiin walaalaha muslim ee qiimaha badan waxaan idinku boorinayaa isku xirnaanta quruxda badan aada wadiin oo aad meesha iskugu keenteen in aad sii joogtaysiin adkaysiin isku xirnaantiinna ay sidaan isi kasii qurux badan ahaato annaga haddaan Soomaali nahay dalkeenii 30 sano iyo ka badan ayaa dagaalo sugeeye galay in badan oo ka mid ah bulshadii qofo meeshu ciisan karo ciisaday culayska ugu badanna wuxuu ku dhacay carruurta iyo dumarka Soomaalidii way soo carartay qofo meeshu ciisan ka soo ciisanay Jarmalka la yimid dadkii waxay soo mareen dhibaatooyin fara badan oo kala duwan dumarkii iyo carruurtii dhibaatadii waxaad moodaa weli qurbihii inay weli ka taagan tahay maalin walba hadda anaga daladihii madaxdoodii aan nahay waxay inoo soo gaarta hooya carruur laga qaatay bulsho isku xiran jaaliyado isku xiran dalado isku xiran safaarad iyo wada mideysan markii la helo ayaa ummadda horumar gaari kartaa Somali community muddo dheer bay dhisnayd suma sheegaba laakiin afka kala xirna dhammaan u furantaa dadka haddayna aas-aaskeeda ku jirnaa maanta nasiib waxa u yeelanay in safaaradda inay nala joogto daladii Soomaalidu ay ku mideysnayd nala joogto dad badan waxay tabahayaan wiil iyo adeerkiisaas ku xigsaday guddoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen isku sheegay arrinta sidaas ma ahan waa noo bilow Somali community hadday bilow tahay waxaan rabnaa inaan hadda aas-aasno xibnaheedii ka shaqay lahaa hormari lahaa dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan iyo Bayern iyo nawaaxigeedana u shaqay lahaa wanaha ka tirsan Somali community taariikhda Somali community inaan idiin sheego ururada ku midaysan dal Somali community idiin sheego 30 sano ayay jirtaa 3 bil kadibna waa 34 jirkii Somali community xilliga la aasaasay caawa waxaa nasiib wanaaga dadkii wax ka aasaasay nin kamid ah inuu maanta halkaan nala fadhiyo magaciisana uu yahay Sheekh Islaaw maxamed awaas mudey boqorka bartamaha warbaahinta qaranka Bayern Munich München Germany